sideed bilood ka hor ma jirin iskaashi siyaasadeed iyo gaashaanbuursi xooggan oo dhex marayay Siciid Dani iyo Cabdicasiis Laftagareen oo kala hogaamiya Puntland iyo Koonfur Galbeed laakiin dhalashadii dawladda ku meel gaarka ahayd ee Baydhabo deganayd wixii ka dambeeyay xiriirka siyaasadda ee Koonfur Galbeed iyo Puntland ma ahayn mid aad u hooseeyay hadda mar kale labada dhinac waxay bilaabeen isbahaysi ay ku doonayaan inay kaga hortagaan faragelin kasta oo ka timaada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud Laftagareen siyaasad ahaan waxaa la aaminsan yahay inuu daacad u ahaa madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wanaagsanaa xiriirka siyaasadeed ee kala dhaxeeyay taas awgeed hadda waxa uu la kulmayaa beegsi siyaasadeed oo ka imaanaya fiila Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh warbixin gaar ah ayaan ku eegaynaa duulaanka cusub ee ku wajahan Koonfur Galbeed Dani wuxuu hormuud ka noqday duulaan ballaaran oo 2 sano qaatay kaas oo ugu dambeyn talada dalka looga guuleystay kooxda nabad iyo nolol laakiin faa'iido siyaasadeed iyo mid maaliyadeed midna Dani kama helin imaanshihii UPD ee kursiga ugu sarreeya dalka haddana ma wanaagsana xiriirka isaga iyo Xasan Sheekh dulucda warbixinteenna waa isbahaysiga hadda Garowe lagu onkay waxaan ogaanay in labada hogaamiye ee Koonfur Galbeed iyo Puntland ay hoosta ka xariiqeen kudlad ay ku doonayaan inay uga hortagaan wax kasta oo dhinacooda caqabad ku ah kana yimaada Muqdisho ila wareediye aad ugu dhow kulamadooda ayaa xaqiijinaya in la isku raacay 5 qodob oo kala ah kow in labada dhinac wadajir siyaasadeed ay yeeshaan kana hortagaan wax kasta oo ay u arkaan inay halis ku yihiin siyaasadooda iyo mustaqbalka dalka gaar ahaan dhowridda nidaamka federaalka oo ay tahay in lagu xisaabtamo madaxtooyada Soomaaliya qodobkan waxa ku jira in la mideeyo awoodda xildhibaanada labada dhinac kala taabacsan ee heer federaal lana raadiyo dhab kasta oo iskaashigoodu uu ku mira dhali karo iyadoo diiradda la saarayo iskaashiga xagga mooshinada siyaasadda ah 2 Dani iyo Laftagareen waxa ay wadaageen walaaca ay ka qabaan hanaanka awood qaybsiga xilalka hay'adaha dawladda federaalka gaar ahaan seefta xilka qaadista ee sida baan u saameysay xubno ka soo jeeday Puntland iyo magacaabida safiirada dibadda ee Soomaaliya oo ay sheegeen lagu xadgudbay hanaanka awood qaybsiga dalka ee 4.5 3 in siyaasadda federaalka ee ku wajahan faragelinta dawlad goboleedyada meel looga soo wada jeesto labada dhinacna ay u arkaan in dawlad goboleedyadu gudahooda iyagu ay xalistaan wax kasta oo caqabado siyaasadeed oo ka jira 4 dhamaadka bishan shirka madasha ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada inay mowqif midaysan ka qaataan dhammaan doodaha xasaasiga ee ku wajahan amniga dalka istiraatiijiyadda amniga qaran dibudhiska ciidanka xoogga dalka iyo wadaagidda kaalmada militari ee caalamiga ah oo ay ka hoosgalayaan la dagaalanka kooxaha xagjirka siyaasadda noocyada doorasho iyo iswaafajinta waqtiga midaysan ee doorashooyinka 5 in Puntland ay door xooggan ka qaadato si loo difaaci lahaa nidaamka federaalka awoodna loo siin lahaa madaxweynaha Koonfur Galbeed iyadoo ay hadda jiraan dhinacyo durba bilaabay dagaal siyaasadeed ku wajahan Koonfur Galbeed in la raadiyo xubnaha kale ee madaxda dawlad goboleedyada lana abuuro golaha iskaashiga dawlad goboleedyada gaar ahaanna Galmudug iyo Jubbaland oo ay xoguhu cadeynayaan inaysan waqti dheer ka sii maqnaan doonin iskaashiga ay hogaaminayaan Dani iyo Laftagareen si kastoo ay ahaataba iskaashiga cusub ee lagu dhidbay Garowe dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay u aragtaa inuu muujinayo barbilowga duulaan siyaasadeed iyo hor istaag dhammaan arrimaheeda la xiriira ma ogtahay maantaba inaad ka maarantid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Ameerika baysi waxa uu ka haqabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store-ka iyo Play Store-ka